بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعنا ونكسب دمانتي بصاحبي يرمل والدنيا كجوكتان waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay caalamka qodobada ku daawad doontaan hadii ay baweyna idma waxa kamida hogaamiyaha ugu sarreeya dawladda wadanka Iran oo goordhow fadhiin culus jeediyay wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran waa ka daba hadlay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda wadanka Mareykanka oo beeniyay hadal hore ugu soo yeeray madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump muxuu yahay barnaamijka ay ku daawad doontaan hadii alla ka dhigo waxa kale oo qodobada ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo qaar kamid ah wadamada carabta oo si weyn uga hor yimid go'aan ka yimid dawladda wadanka Mareykanka muxuu yahay hadaba go'aankaasi barnaamijka ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo Ukraine iyo Ruushka oo xaalkooda meel qaraar u marayo barnaamijka ayaan ku soo qaadan doona hadii alla ka dhigo aad bad maasantina soo dhawaada hadii ay tahay markii kugu horreysay oo kanaalka soo booqata fadlan Magol Media subscribe si loo wadaag saaxiibada muuqaalka aragtidaada ka dhiibay aad bad maasantahay soo dhawaada markale wagaag aan ku horeeyay markii ugu horreysay hogaamiyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei ayaa isugu yeeray qaar kamid ah mas'uuliyiinta wadanka saacadihii ugu badnaa tan markii uu dagaalka qaraxay 28 bishii February 2026 ayuu la qaatay madaxweynaha wadanka marka Iran Mas'ud Pezeshkian ninka la yiraahdo hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei in ka badan 2 saac bar ayaan wada joognay hogaamiyuhu wax walbana sida ay tahay ayaan ugu sheegnay isaguna dabcan wala socda dawladda wadanka Iran gardaroole ma aha mana doonayno dunidu inaan u horsano dhibaato iyo sidoo kale to mashaakil in aan dhaqaalaha la xiriira mar rabno dhibaato inagu aynu horsanay in dunidu ay dhibaato iyo sidoo kale to culays u ku noqdo laakiin dhibaatada ay keenan Mareykanka iyo xogaga burcada ah ayaa dunida dhibaato xoog la gelinaya Iran weligeed wada hadal iyo nabad ayay diyaar u tahay midaas ayaana shacabka iyagu caan ku yihiin inaguna kama weecan doono saacaate hadii la isku dayo in la weeraro gudaha wadanka Iran la burburiyo shacabka wadanka Iran isla markaana musiibo laga abuuro gudaha wadanka Iran dabcan gacmaha ma laabo doono gacan walbana waan jar doona ayuu yiri madaxweynaha ugu sarreeya madaxweynaha wadanka Iran markaas ninka la yiraahdo Mas'ud Pezeshkian laakiin hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei ayaa weeraraya sida laga soo xiganayo warbaahinta maxalliga ah ee dawladda wadanka Iran telefishinka Al Jazeera uu baahinayo waxa lagu yiri qoraalka wax walba waxay ku socdaan si xigmad iyo xeelad iyo xoog ku dheexan hogaamiyuhu waxa wadanka ku hogaaminaya xigmad iyo xoog intuba dhammaan xoogaga ka shaqeynaya wada hadallada iyo nabadda iyo guud ahaan laamaha amniguna isaga ayay hoos tagaan mana jirto ayaa lagu yiri wax khilaafsan amarkiisa oo markaas wadanka ka shaqeynaya arintan qaar kamid ah muxalliliinta ayaa falanqeynay inay jiri karaan rag si weyn uga aragti duwan hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei waxaana loo badinayaa raggaas inay kamid yihiin madaxweynihii hore ee wadanka Iran ninka la yiraahdo Hassan Rouhani iyo wasiirkiisii hore arrimaha dibadda Mohammad Javad Zarif waxaana la weeranayaa labadaba hogaamiye in si weyn ay uga soo horjeedaan xitaa doorashadiisii ayaa la weeranayaa in si weyn u diideen iyagoo dhowr bilood ka horna qorsheeyay afgambi kalena odaygii wadanka ugu sarreeyay ee dhalay ninka hadda wadanka maamulaya Ayatollah Mujtaba Hussein Khamenei Ayatollah Ali Khamenei ka hor intaan la dirin ayay isku dayeen ay markaas Hassan Rouhani iyo wasiirkiisii hore arrimaha dibadda iyo mas'uuliyiin fara badan oo ka tirsan ilaalada kacaanka in afgambi lagu la dhaqaaqo laakiin talaabooyinkaas waxa hor joogsaday isla markaana gaashaanka ku dhuftay ninkii isaguna isla dagaalkan ku shahiiday Ali al-Rajani oo xilligaas ahaa gudoomiyaha guud ee amniga dawladda wadanka Iran gaar ahaan amniga qaranka على إتحال مركز وحلو ورنا إنه جاميو فرين تلود دريوم مسؤولين كتر سنتولد دوّد دن كيرام كوا هراء وقتر سنان جري رجع هذا العيد كجر يرجع كلا ولا تهنسين هاي فرين تمعناه هذا واحد تهاي هذا إسكود ضيضاه إن دور بهين تعلبي يكون قرطان أركتكلا أما أتأمو جسان شعب كدولة دوّد دن كيران أركتكلا قبل سنان إن جرتو واد ما كنت هنا يصل الصعود مجرتو وذا هذا الكوسابسن وحل لجلي كرو مريكان كم أركتنا اللي جمد دي بنكرو عد ولا بو إسكود ضيضاء النظام كخلافتنا واتقنا الشقد الرسمي هرين تروح muuqata in si weyn ugu dardarwarinayo hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei siyaasiyiin mucaarada iyo kooxo kale iyaguna la doonayo fadqale inay ka abuuraan gudaha wadanka Iran birta in laga asli doono ayay jawaabta noqonaysaa haddii ay isku dayaan ducfaroor inay ku sameeyaan amaba ay qaadaan tilaabooyin xitaa uusan la socon hogaamiyaha ugu sarreeya wadanka Iran Ayatollah Mujtaba al-Hussein Khamenei dhinaca kale sheeka cajiib ayaan idinka hayaayee wadanka Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Donald Trump ayaa ugu degay diblomaasiyiinta Ameerikaanka ah in markaasi khamaar ay ka dhigtaan ama ay ku dhigtaan wada hadallada dawladda wadanka Mareykanka iyo Iran u socda inta badan arintan lacag tir badan ayaa laga sameeyay dhowr marna waa laga sameeyay lacagta ugu badan waxa la sameeyay xilligii markaasi xiisadii Venezuela iyo wadanka Mareykanka ay taagneed saraakiil mukhaabaraadka Mareykanka ka shaqeynaya si wanaagsan ula socda halka ay howlaha marayaan ayaa khamaarkaas ku sii biiraya dabadeedna lacag malaayiin dollar ayaa
la kala dhacaya la kala qaadanaya maxaa yeelay ninkii aragtidiisa sida wax u dhaceen qoro isla markaana sheega ayaa lacago tirabeele helaya maxaa yeelay halkaas marka waxa leeyahay saraakiil badan oo mukhaabaraad ayaa halkaas xog badan ku qoraya siday malaayiin dollar u helaan laakiin hadda dawladda wadanka Mareykanka ayaa ugu digtay diblomaasiyiinta iyo ciidamada sirdoonka iyo guud ahaan mukhaabaraadka dadka ka shaqeeya in arintaas markaasi ama waxa loo yaqaano market blagas ay dhigtaan inkastoo lacag tirabeel laga helayo haddana dhinaca kale dawladda wadanka Mareykanka ayaa arintan waxa la leeyahay waxay muujinaysaa sida mas'uuliyiinta ku heeran aqalka cad ee wadanka Mareykanka dhamaantood ay u noqdeen kuwa baahan isla markaana balaayiin dollar oo lacag sidii ku helayeen raadinaya Donald Trump ayaa ka digay in diblomaasiyiinta iyo dadka ciidamada iyo xogta dalka Mareykanka ay haddii arintaas way dhigtaan talaabo laga qaadi doono xilligii Venezuela waxa la wariyaa lacag aad u tiro badan in lagu qaatay sidoo kale dawladda wadanka Iran ayaa hadda ka hor barnaamij noocan oo kale ah markii dagaalka magaalada Gaza soconaya xog tiro badan kaga qaadatay maamulka gumeystaha Israa'iil hadda dawladda wadanka waxay maraysaa in online ay ku ugaarsato iyada oo saraakiisha mukhaabaraadka dawladda wadanka Mareykanka ka shaqeeyana halkaas ay markaas khamaar dhiganayaan si ay u helaan lacag aad u tiro badan maxaa yeelay wax walba way og yihiin xataa qaarkood ayaa la warinayaa in arintan way halis ku tahay oo in inta ay xog bixiyaan qof yiraahdo sidaas bay wax u jiraan xogtaasi qor dabadna qofkaasi uu qaato lacago aad u tiro badan ugu dambeyntii lacagta loo qaybsado 2x2 ama laba qol loo qaybsado ninkii xogta keenay iyo ninkii magaciisa ku qoray oo dabcan qof iska caadi ah mararka qaar noqon kara ayay u badan tahay arinta inkastoo taa laftirkeeda la isaga dab imaan doon laakiin haddana waxa la yahay xafiiska madaxweyne Donald Trump iyo guud ahaan dawladda wadanka Mareykanka qolada hadda maamulka joogta waxay isku bedeleen ama si wanaagsan ay ugu ogyihiin kuwa fil Soomaaliya hadda ku jira waxa ka dadweynaha dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran mudane Abbas Araji oo goor hadlay ayaa isaguna sheegay dawladda wadanka Iran inay diyaar u tahay in ay furto gacanka Hormuz laakiin waxa uu sheegay markii ugu horreysay guud ahaan dagaalada waa in la joojiyaa xisaarka dawladda wadanka Mareykanka Iran dulugtayna waa in la qaadaa waxaas oo dhan waa ka jawaabi karnaa laakiin Iran wali waxay diyaar u tahay inta albaabada diblomaasiyadu ay furan tahay in wadanka Iran wali isdajinayo isna xakamayo ayaa lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda dawladda wadanka Iran dhinaca kale haddii aynu eegnana sheeko cajiib boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo Kuwait ayaa marka naftoodii u yaabay waxa la warinayaa maalmihii u dambeeyay barnaamijkii Donald Trump uu waday ee ahaa xuraynta gacanka Hormuz waxa la warinayaa Kuwait iyo Sacuudi Carabiya inuu culays u kala kulmay dawladda wadanka Mareykanka boqortooyinka Sacuudi Carabiya iyo Kuwait ayaa diiday in diyaaradaha dawladda wadanka Mareykanka ay si xorriyad ku dhaxantay ugu dhaqdhaqaaqaan hawada markaas ee wadamadaasi waxaana ay diideen garoomadooda inay shidaal ka qaataan isla mid inay ku soo degaan dawladda wadanka Iran ayaa fariin aan naxariis ka muuqan hore u gaarsiisay wadamada Sacuudi Carabiya iyo guud ahaan wadamada Khaliijka waxaana lagu yiri waan aragnaa in dawladda Mareykanka ay soo diyaarinayso weerar ka dhan dawladda wadanka Iran saldhigyadiina waa kuwa laga soo duuli doona shidaalka diyaaradahaasna waa mid idinka soo qaadi doono laakiin haddii arintaasi la fuliyo idinkuna waxaad u ekaan doontaan Gazadii Israa'iil muddada 2 sano burburinaysay ama magaalada Khan Younis la yiraahdo ee ku taala koonfurta magaalada Gaza la tubqi wala tadar in lagu murmi doono meeshan magaalo ahaan jirtay mise ayay Iran wacd ku martay waana sababta keentay in boqortooyada Sacuudi Carabiya iyo sidoo kale dawladda wadanka Kuwait ay si weyn isugu dayeen in culays saaraan dawladda wadanka Mareykanka waxaana ay ka dhiga adeega in la shaqeeyaan ee markaas ay howlgalka dawladda wadanka Mareykanka taa bedelkeeda isu tagi Imaaraadka Carabta ayaa gacan u fadhiisay sida la leeyahay waxna Mareykanka hadda uu si weyn isugu diyaarinaya marka howlgalkaas inkastoo uu dhacsoobay sida la leeyahay haddana Sacuudi Carabiya iyo Kuwait ayaa sabab u noqday maxaa yeelay jawaabta rasmiga ah iyo sida dawladda wadanka Iran barlamadeeda u fuliso ayay boqortooyinkan ka argagaxeen waxayna Iran sheegtay haddii arintaas ay sii socoto iyaguna in ay wajihi karaan wax lagu tilmaamay lama arag lamana maqal laakiin isu tagi Imaaraadka Carabta iyaduna maxay ka dheeftay wali xaalad xarish ah oo markaas ay kala jaanayso markan hubanti la'aan ayay ku jirtaa inkastoo wadamo badan oo markaas Hindiya iyo maamulka shuftada ah ay kamid yihiin ay u tacasiyeen boqorka ay walaalaha yihiin ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu sidoo ay ahaatab wax lagu reenaya xaaladda gobolka bariga dhexe wali inay sideed tahay Iran iyo Mareykanka inkastoo wada hadallo teelteelaha ugu soconaya wadanka Afghanistan wadanka la yiraahdo Pakistan haddana ilaa iyo hadda ma jirto war rasmi ah ama labada dhinac isku aqoonsadeen laakiin daqiiqad batan ka dambaysa mar sheekada cirka ay isku shararaysa waxa la leeyahay Mareykanka iyo Iran iska daa heshiis dagaal ayaa food loo yahay daqiiqada kadibna waxa la maqlaya wada hadal in la gaaro daqiiqada ayaa ka haray marka ilaa iyo hadda khubarada iyo dadka diblomaasiyada waxay leeyihiin ilaa heshiis la saxiixay mooyaane marna lama aamini karo dawladda wadanka Mareykanka iyo sidoo kale ee Iran maxaa yeelay mar walba rajo la muujinayo culays kale ayaa imaanaya laakiin waxa soo dhan waxa la leeyahay
dowladda waddanka Mareykanka ayaa ugu wacan maxaa yeelay madaxweyne Donald Trump wuxuu rabaa sicirka gaaska iyo waxyaabo daruuriga ah ee gudaha waddanka Mareykanka oo cirka isku sii shareeray ayuu rabaa in ay hoos u soo dhacaan isla markaana isu muujinayo inuu yahay markaa hogaamiye geesi ah oo guul ka gaaray dhinaca iyo waddanka ee Iran وهاجاك دينا عن كلا هدي إنه أجرنا دولة وطن كيوكرين iyo Ruushka ayaa mar kale dukum iska dhigaya Ukraine Ruushka hore waxa uu sheegay ilaa Sabtida in dowladda wadanka Ruushka xabad joojin dhankeeda ay qaadatay Ukraine ay ku qasbantay xabad joojintaas inay qaadato laakiin madaxweynaha wadanka Ukraine Volodymyr Zelensky oo bartu Twitterka ku leeyahay qoraal soo dhigay ayaa yiri dowladda wadanka Mareykanka wuxuu yiri dowladda wadanka Ruushka ma jiro buu yiri wax heshiis ay xushmeynayso sidaas daraadeed inaguna markana ma xushmeyn doono ayuu yiri waxna la warinayaa in dowladda wadanka Ruushka duqeymo culus ay ka wado markaas gudaha wadanka Ukraine magaalooyinka ku yaala koonfurta kuwa bartamaha iyo caasimadda wadanka Ukraine Kiev ayaa la warinayaa in ololayaan diyaaradaha droniska ah dowladda wadanka Ruushka gantaalo guuxooda ka dharay iyo diyaaradaha dagaalka ayaana la warinayaa sida roobka inay uga hayeen magaalooyinka waaweyn ee farkutiriska ah ee gacanta ku jira marka dowladda wadanka Ukraine dhinaca kalena militariga dowladda wadanka Ukraine ayaa iyaguna diyaarado drones ku weeraray caasimadda wadanka Ruushka ee Moscow halkaas oo la warinayo inuu ka soconayo qabanqaabada waxa loo yaqaano maalinta guush ee 9 bisha May sanadkii 1945 ayayna cagti mariyeen xogagii dowladda wadanka Ruushka naasiga wadanka Jarmalka sidaas daraadeed marka waxaad moodaa dowladda wadanka Ruushka xabad joojinta ay ku baaqday inay burtay waxayna wacd ku mareen Ukraine inay dib u xasuusin doonto malama madow maxaa yeelay hadii iyada oo markaas dabaaldega ay soo diyaarinayaan amaba ay ku jiraan ciidamada militariga wadanka Ruushka ay Moscow weerar diyaarado drones ku soo qaado dowladda wadanka Ukraine waxay wacd ku martay inay carqaladeyn doonto markaas dabaaldega guusha dowladda wadanka Ruushka taasi dhinaca kale Moscow iyadana hanjabaadyo aan naxariis lahayn ayaa ka soo baxay dhinaca kale waxa la isweydiinaya halkuu ku dambeeyay heshiiska dhawaantan ay gaareen madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa Vladimir Putin lana doonayo in lagu dhawaaqo 9 bisha May maalinta dowladda wadanka Ruushka u dabaaldegayso guulaheeda mucjisada waana sababta la leeyahay dowladda wadanka Ukraine hadda u weerarayso Ruushka waxay tahay in halkaas looga dhawaaqo heshiis sheegaya wadanka Ukraine boqolkiiba 6 Ruushka inuu la wareegay 10 soo hartay 10 kamid ahana in dowladda markaas Mareykanka dhaqaalaha halkaas ay daabulo doonto Ukraine 30 soo hartay in iska iimaansan doonto alay taxar waxa la iyaguna duqeymo culus ayaa ka soconaya magaalooyin waaweyn oo ku yaala gudaha wadanka Ukraine Ruushka isaguna sidoo kale caasimadda wadanka Ruushka ee Moscow ayaa iyadana la beegsaday dhowr weerar oo dhinaca diyaaradaha droneska isku soo wada duubo xaaladda waxaad moodaa mar kale Ukraine iyo Ruushka colaadooda inay dib u sii qirxi doonto lamana garanayo dowladda wadanka Ruushka waxay fali doonto marka ay dhamaadaan munaasabadahan waaweyn maadaama dowladda wadanka Ukraine arintaas ay khalkhal gelisay aad u mahadsantiin saaxiibada iyo dib intaan u kulmo doonaa nabadgelyo